السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي إذا شرفت بدن ما أنا بدوني على كجوتان وصل راديو يوتيوب جنال كيجا هديتها مرك كورس صوب بقطة جنال كيجا بليز وحكا عصنا يا إن أنا كبح فيديو كان إلا أد سبسكرايب يتابعوا فيديو شارك رسيد أو لايك تنا أتكو ريحت أساس أساسي فيديو كان إذا كجاه ردي معي وفيديو عن سو أركي أو عن لسه فجعي qaf iska oysiinaya qafka markuu run daacad oo yaayo iyo marka ay ooyinta iska yeeltahay horta waa la kala garanaa bal idkaga hor dhici maaye arinta markan gudaha galno asla wada falanqeynayna waan oraahdeydi iyo fikirkeyga iyo wixii aan ka qabo aan ka dhaxaya bal ila daawada أنا رتا روح هو يقتادي يقتا رتا لما حل كرانيو رتا la qabdhow hooyaya qabdhow qoslaya anu ma gaar adduunka dhinaca loo wado ina dhan oo la guursaday oo la mehersaday oo nin qabo ooridiisu tahay haddii guur soo martay oo aad soo kala tagteen ee aad soo furtay ama awlaad ha ku heeso ama maysan ku hayn ee ilaahay calaf uga dhigay nin kala guursato oo ay ooridiisa noqoto kii hore haddoo kala tageen waaye kaant u soo fadhiisto wabaad u haya oo uu leeyahay kalamaan tagin ee waan qabay aanoo qabo ayay nin kale mehersatay oo guursatay marka bal anu ilaa doo fahmi lahay barnaamijka bal gudaha aan galo waxa asaga uu yiraahdo aan bal ani fikradeeda ka oranayahay haye bal nabad حواليو umad Soomaaliyeed waxaan sheegayaa naagteeda cunuggaas afka dheer cato shir leeyahay sixir inuu ku haysto habeen kastana fiidiyaasheeda oo la neekinayo habeen masaaxda qof kasto yaqaan fiidiyooshi u soo diraya kow haye how yiri ninkaas afka dheer cato shir leeyahay gabadheeda sixir buu ku haystaa balan ku soo cilna waxay soo balnay dhaafin xantaa laga yaabo haye bal igu soo celi shir leeyahay sixir inuu ku haysto habeen kastana fiidiyaash xaqiiqo jirta inta 3 bilood ilaa iyo 2 bilood ma aqaan waxay qabaan 3-4 bil amal way dhantaa malana halka uu jiray fiidiyoogan aad u bata isbuuc ku jira hada u badato social media isbuuc ku jira aan laakiin maanta ark dhahab isbuuc basi halka uu jiray markii gabadha uu qaba sixir laga qaadanayay oo la meherinay halka uu jiray gabadha meesan waalid lahayn meesan hooyo aab u nooleen man waa maxal dhahay habaryaali iyo diyaali abtiyaala lahayn gabadhu ma oga miya habaryaasheedii abtiyaasheedii adeeradeed in gabadha la qabo nin ku xiran yahay ana aqligii was qaban siilaya bal u kaad bal ninkan ooyinta iyo xaaska daadinayaan bal fiirinayay hay oo la neekinayo habeen masaaxda qof kasto yaqaan fiidiyooshi u soo diraya ninkaas naagta sixir ku haysto sixir ayuu ku haystaa marka habeen qof kasto yaqaan fiidiyoogeeda u soo diraya urka ayaa gubanaya maanta waxa xaqiiqada Soomaalida u cadeynaya waa been hadaladiisa adaan dambi baaramihi qafka dadka qulubtoodii iyo uurkoodana kuma jiro laakiin ninkan hadalka uu hadlaayo dhageyso hada aqli leedahay oo si fiican u fadhiisatid waa ku soo celinaya bal daawo hadaladiisa wuxuu leeyahay habeen masaaxda qof kasto yaqaan fiidiyooshi u soo diraya ninkaas naagta sixir ku haysto sixir ayuu ku haystaa marka habeen qof kasto yaqaan fiidiyoogeeda u soo diraya urka ayaa gubanaya maanta waxa xaqiiqada Soomaalida u cadeynaya waa beenteeda wiil iima dhalin labo carruur ayay dhashay wiil iyo gabar ayay dhashay xasan top meeshu iga fasaqay asaga ayaa yaqaan horta xaaskayga xasan top wax muu fasaqay xasan tobo wax ma fasaqday kurk in laga gooyo waa dad wax fasaqday ninkan hadduu gabadha qabay oo aad fasaqday kurk in laga gooyo waay adduunyada sanadkan meel loo wadaa ma nin ooridiis inta la iska soo wato nin kale lagu xirto oo la yiraahdo ninkan kala qaba kii hore waxba kama jirin horta gabadha mar la wareesto oo wareesta la qaadan waa soo gelin doona hadda isla programkan ku soo gelin doona
waan boobsiinaya insha allah wiilkan ninkan iyo waxa uu ka leeyahay gabadha oo maxaa lahayay catoshare qabo bal u kaas haye jowhar ugu soo tagay gobolka gada ayaan soo aaday meel la dhaha garbahari baan soo aaday garbahari baadiyaheeda oo duq awowgii aabihiis oo ku xanuunsan ayaan soo aaday marka meesha ma lahayn wax internet lama isticmaalaynin oo garbahari tuulo hoos tagto yaa tagay markaan soo laabtay oo magaaladii garbahari kusoo laabtay yaa dadkii oo waxaan arkay video waan arkay liisoo diraayo islaantaadii xamar baa lagu aroosay arrintaas maxaa warkaysaa baa la dhahay ilmahaygana hadda alxamdulilah waxaa haayo ayaydood baa hayso ma garatay ayaydood hayso markii wallahi lii sheegay waan qaraacmay wallahi kama filanaynin adbo haddii lagu dhaha islaanta nin kale raacday maxaa samayn lahayd waa qaraacmaysaa soo maaha marka aniga aad baan u qaraacmay niyo ummadda soomaaliyeed telefonadeeda waa wacday waxaan waa sumcad dil hablaha yar sharafta badan lagu sumcad dilaayo oo la leeyahay marwo nin qabay oo oori ah inta ninkii baxo safar yar galoo tagay meel ee la leeyahay intuu safarka ku maqnaa ayay iska baxdo ninka la raacday waxaas diinna ma ahan dhaqanna ma ahan sharaf soomaaliyeedna ma ahayn in hablihii la yiraahdo anoo qabay iga fakato nin kale raacday oo nin kale qaba ama sixir ha ku wato ama ha ka maxaa lahayay ii sheeg si uu ku wato ha wato ama ayada raacda lugeeda ku raasataya ama asaga wataya oo lugiis kusoo doontaya laakiin in la sharaf dilo diintayadii iyo hablahayagii oo la leeyahay ma jirto adduunyada ilaahay meel ka dhacda ma jirto naag laba nin isla qabta adduunka dhinac kale u jeesan lahaa marka ninkan waxaan malilaahi oo daacad ah bay ka tahay mise ma garan mise waxay ka tahay kaalay gabadhan inta meel la soo wado la fadhiisiyey la leeyahay saan dheh oo wiilkaas iyo gabadhaas iskuma qalmaane afka ku batay Soomaalidan waana dhaqan xun yihiin horta sidooda dhanba markii qabyaalada iyo qabiilka iyo waxaas la guda galo wiil iyo gabar iscalmado isguursaday wax qabiiladoodii iyo meelaha kasoo jeedaan iyo iskuma qalmaan iyo waxaan la leeyahay horta total waa qalad diintana kuma taalo waxaan Soomaalidu baa keensato dhaqankooda tahay meel keenta ma aqaan marka in la sumcad dil hablaha la yiraahdo gabar laba nin isla qabaa jirto nin hore u soo qabay isay nin kala raasatay ma jirto waa hadda ugu cusub hadda ka horna waa ogeen barnaamij hore u xirmay qofkii yaqaanaba oo garanaya cidda aan ka wado haddana tanaa noogu xigto waxa kaloo soo socdaan way badan yihiin waa loo fadhiyaa bal marka balwad oo kiyaala weynow aqaan waa iska bedeshay ninkaan catoshare ayaan isku dayay inaan lambarkiisa helo ku wariyo oo xagga jooga waxaan ku wari saaxiibo lambarkiisa ninkaas ii raadi Soomaali badan baa marka lambarkiisa asaga astaa ma helin oo haleeli waaye marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanay dhibaato weyn horta ani waa li dulmiyay dulmi weyn baa li dulmiyay waxa ay dulmiyeen cunugan yarka waa afka dheer oo catoshare leeyahay ma ahan rag waa weyn oo turmeed iyo fadhiyo iyo arrinta ka shaqeeyay marka rag ayagan waa isla joognaa muqdishona waa imaanaya waan tagi doonaa muqdishona waa isugu tagi doonaa bal arrintaasi marka gabdho kale waa tuuran aniga ma u baahniba hadda aniga ma u baahni hadda ayadaba gabdho kale waa tuuran yihiin oo kayaankii aan guursan kara macnaha si kale hadday arrinta u fasiran dadkan ay dhihin ninkaas naagta muxuu uga calacala naaga kale oo badan yihiin marka aniga waxaan leeyahay caan weyn carruurteeda bes baan ka naxay aniga marka waalidkeed la xiriido aabaheed la xiriido waalidkeed waa waalid iska danyar buu ahaa ayaga laftooda waxaan u malaynayaa in afka loo buuxiyey afka in loo buuxiyay aan u malaynayaa marka ayaga laftooda telefoonada ay ka qaban waayeen aan taas kuma raacsani waalid si walba oo gabadheedu nin ugu og yihiin adduunyada barkeed oo lacag hadii la siiyo oo la yiraahdo maanta baahidan ku hayso ku daboolo gabadhaada ka aamus ninka qabay oo hore waa laga wadayaa nin kale loo geynaa oo lagu xiraa meherkii hore haysto oo ku dhagan yahay meherkii hore
oo uu nin qabo haddii inta waalidkaas loo taga la yidhaahdo gabadhaadana si oo nin kalaan ku meherinaynaay lacagta aan hoo iska aamus juuqa dhehen u maleema inuu jiro si walba u baahan yihiin u danyar yihiin ma u maleynayo arrinkaas wuu ku baan sheegay oo uu leeyahay waxaa laga yaabaa in afka loo buuxiyo lacag yar kis la siiyo family iska danyar bay ahaayeen kuma raacsanaanu taas haye gabadhaasi waxaan isku dagaali jirnay caan baan noqonaya mar kasta waxaan isku dagaali jirnay caan baan noqonaya maalmaha ka mid ayaa waxay tiri page iyo youtube isoo fur marka waxaan ku iri aniga page iyo youtube ma aqaana waxaa sheegaysid igala tag baan ku iri caan maxaa ku faleysay baan ku iri caan maxaa ku faleysay naagti markii hadda turtur media tagtay caan bay noqotay niman baa lacagay qarasho ku aruursaday markay qarashay ku aruursadeen caan bay kasoo dhigeen hadda waxaan leeyahay caruurteedu ha usoo laabata caan weyn way noqotayba si walbo caanimo loo raadiyo adoo ninku qabo nin kale caan kuma raadinaysid wax walba ay kaa codsato iyo si walba ay ku tiraahdo caanaan rabaa ma shaqaynayso wax walba oo soo dhaca adduunka dhinac kale hadduu kasoo wareega xataa ninku qabo oo mehe haddaadan dagaal jirin markaas oo adinka dhexdiina ah oo aadana gabadhaas aadan soo furin abadan qof maskaxdeeda fiyowda ho joogtaa dee tahay laakiin adiga laftirkaaga hadalladaada aaba iskhilaafsan in gabadha mar aad tiraahdid waalidkeed afkaa loo buuxiyey oo maxaa la dhahaa ii sheeg lacagaa la siiyo dad family iska danyaran bay ahaayeen wayna ka aamuseen teleefonkana igama qabanayaan ta kalaa kuusoo hartay caan raadiska ayadana ma u maleynahay taasina ayadana way kaa dhiiqowday insha allah ha iga tagin ila joog channelka subscribe saar videoga share gare oo like gare asxaabtaada la sii wadaag. Assalaamu calaykum.